inta markaan uga soo gudubno amarkeena ugu dambeeyay rectangle-ka waxaanu arkaynaa markaan waxa weeye amarkeena inoogu xiga waxa uu noqon doonaa amarka circle-ka. طيب circle-ka maxaan u adeegsan doonaa waxaan u adeegsan doonaa مثلا inaynu hodhowti mustaqbalka inaynu axis saas oo kaleeta aynu haysano inaynu waa maxay axis-ka aynu haysano aynu magacyo ula baxno waa maxay dawaa'ir yar aynu banaanka mashruuca aynu waa maxay aynu saa ugu sawirno sidoo kaleeta مثلا hadii waa maxay daaqad gaar ah rabno inaynu sample gaar u sameeyno inaynu caadi mashruucan wuxuu isticmaalaa waxa weeye polygon caadi laakiin ana wax laga yaabo mararka qaar inuu waa maxay inaynu isticmaali karno aynu circle yaryar sidoo kaleetana waxa weeye مثلا hadaynu rabno inaynu manaasiibta ama levelada waxa weeye balankeena aynu muujino inaynu waa maxay ama thickness-ka hodhowti slabkeena oo kaleeta hadaynu rabno inaynu muujino inaynu circle yaryar aynu ku muujin doono ama any shape kaleeto oo waxa weeye mashruuceena gudihiisa qaab waa maxay circle u samaysan oo kaleeta aynu adeegsan doono marka hadaynu drawing area-deena kusoo noqono circle-ka waxaan naga soo dooran karnaa waxa weeye intii hore aan hore u aragnay inaan waa maxay qaybtina ribbon-ka aynu waa maxay aynu saa uga soo doorano ama waxa weeye draw area-deena aynu waa maxay draw waxa leeyahay menu-geena aynu kasoo doorano aynu circle ama waxa weeye in aynu ku qorno waxa weeye keyboard-keena C xarafka C oo waxa u taagan yahay circle. marka hadaynu siisa u taabano waxaan ku leeyahay waxa weeye specify the center point for the circle waxa taabataa ama specify garaysaa aad center point-ga waxa weeye circle-kaaga marka center point-ga hadii aan saa dhaho wuxuu ku leeyahay waxa weeye kadibna waxaad muujisaa specify the radius waxa weeye specify the radius of the circle-ka radius-kiisa waxa weeye specify garay marka circle-kan hadda aan sawirayna waxaan ku sawiraynaa waxa weeye center-ka iyo waa maxay radius-ka yani waa maxay radius-ka waxa weeye dooranayna marka مثلا hadaan radius-kayga wuxuu noqonayaa مثلا 50 mitir oo kaleeto waxaad arkaysaa aad hadii aan zoom sa usoo dhaho inuu waa maxay ii sawiray uu circle saan oo kaleeto ah soo garatay marka circle-kayga waa kana saas oo igu soo hadda saa u dhaway ay corner waxaad arkaysaa inuu ku leeyahay radius-kaaga wuxuu noqonayaa 50 mitir dabcan circle-kan hadii aan saa ugu soo dhawaano waxa jirta circle-ka inaynu intaasoo nooc aynu u sawiri karno aynu soo garatay midda ugu horeysa hadda aynu doorano waxa center-ka inaanu xadidno iyo radius-ka waxaan xadidi karnaa مثلا sidoo kale center-ka iyo diameter-ka aan xadidaya sidoo kale tan waa maxay laba point ayaan waa maxay ku sawiri karaan ama saddex point ama waxa weeye tangent radius waxa la yiraahdo ama saddex tangent مثلا hadii aan waa maxay amarka labaad aynu doorano مثلا aynu hano center iyo radius waxa weeye circle-ka ku sawir wuxuu leeyahay marka ugu horeysa specify the center-kaaga waa maxay specify garee marka si random ayaa waa maxay aan u dooranayaan kadibna waxa uu leeyahay diameter-kaaga sheeg inta uu noqonayo diameter-kaaga waxa rabaa circle-kii hore kale lamid ah kii hore marka radius-kiisu 50 ahaa kan diameter-kiisu wuxuu noqonayaa 100 طبعا si waa maxay nafs shape ama nafs circle mid hore kale ayuu soo baxday labada amar marna waxaan ku sawiraa center iyo radius marna waxaan ku sawiraa center iyo diameter amarka saddexaad hadaynu fiirino waxa weeye uu leeyahay 2 points waxa weeye circle-kaaga waxaad ku sawirtaa adoo dooranaya laba point hadda shawirka aragto waxa arkaysaa maxay laba point inuu waa maxay usaa kuugu muujinayo marka labada point haduu ku dhaho مثلا ay waxaad specify garaysaa ku leeyahay first point-gaaga ugu horeeya marka hore specify garay marka waxa rabaa مثلا inaan circle-ka aan ku sawiro labadaas circle dhexdooda marka aan dhahayo مثلا first point-gayga waa kana second point-gayga waa kana soo garatay ma first point-ga markaan doonto ilaa ay point-ga labaad aan gaarayo way la soconaysaa second point-gayga مثلا waxaan dhahayaa waxa weeye waa kana soo garatay ma hada arkaysaa waa maxay circle in waa maxay aan isticmaalay laba point inaan waa maxay circle-kaas aan si fudud u sawirayaan hadii aan amarka line saan kala soo doorto مثلا ay shakli waa maxay orto aan ka saaro soo garatay ma ay shakli aan waa maxay u baahanahay مثلا aan saan kala u saarto amarka hadartaan aan doorto laba point sawir u yiri waa maxay aan dhahayaa مثلا point-ka koowaad waa kana point-ka labaadna waa kana soo garatay ma hada arkaysaa waa maxay inuu circle-ka walkaas ay ugu sawirayo center-kooda ah hadii aan doonayo مثلا amarka saddexaad oo waa maxay circle-kan u dooran karo inuu waa maxay aan dooranay saddex point in aan waxa weeye circle-kayga aan sawiro marka waxaan dhigi karaa مثلا center-kayga waa kana first point-gayga waa kana second point-gayga waa kana soo garatay ma saddexdeed point aan qaadanaya waa maxay in aan circle-kayga aan sawiro si easy ah
waxaa jira waxa la yiraahdo tangent radius inaad waa maxay labada tangent iyo radius aad waa maxay aad dooranayso aad مثلا hadaan dhaho waa maxay first waa maxay tangent-gayga waa kana second tangent-gayga waa kana soo kala tiimaha radius-kayga مثلا hadii aan dhaho waa maxay 40 buu noqonayaa aan enter saa u dhaho waxaad arkaysaa waxa weeye inuu waa maxay igu sawiray amarkaan aan isticmaalay laba tangent iyo waxa weeye radius hadii aad مثلا fiiriso saddex tangent iyo waxa weeye inaad ku sawiri karto waxa weeye line-kaaga waxaad taabanaysaa waa maxay مثلا first line-kayga kale waa kana waa leedahay tangent-kayga labaadna waa kana waa leedahay مثلا tangent-kayga saddexaadna waa kana waa leedahay مثلا circle saas oo kale taa ii sawir midna waxaad arkaysaa waa maxay circle-kan hadda aan sawiray wax tangent la tahay circle-kan wax sidoo kale tangent la tahay waa maxay line-kaas kor mara iyo waxa weeye tangent waxa la tahay line-kan kale oo qaybta hoose mara marka dabcan circle-ka intaas oo qaybood waa maxay u dooran kartaa u sawiri kartaa ayaa jira laakiin midka ugu badan anaga aan isticmaalayna waxa weeye marka inaan isticmaalno center iyo radius ama center iyo diameter labada ugu muhiimsan waxa weeye centerka ashkaasha ugu badan aan isticmaalay dabcan kuma jirto ay kaliya waa maxay inaan waa maxay aan center point-ga aan doorto kadibna waa maxay aan radius-ka iyo diameter-ka aan doorto that's it marka circle-ku wax badan ma lahan easy way inta soo gudbayaan insha Allah marka command-ga inoogu xiga waxa uu noqon doonaa waxa weeye construction line-ka waxaan u adeegsan doonaa waxa weeye inaan ku sawirno axis-ka mashruuca مثلا hadii plan-keena hore aynu dib ugu noqono plan-keena saan kale inoogu yaalay waxaad arkaysaa waxa weeye khutuud qalinka guduudan ku yaala waa maxay kalarka guduudka iska leh soo waxa kale timaa dashedka khutuudaas waxa weeye waa axis-ka mashruuca مثلا hadii marka aan isolated iska dhaho aan waxa weeye ayaga kaliya aan la haro dhamaan layiraahdo kale to dhan aan iska qariyo aan waxaad arkaysaa axis-ka waa maxay shakli noocaas kale inuu leeyahay mashruuca meesha laga bilaabayay nooc kasta ama maxay drawing kasta waa maxay waa in axis-kaas oo qorto kula hadaay marka axis noocaas kale taa marka rabay inaan mustaqbalka aan sawiro aan qaab nooc ayaan u sawirayaan marka insha Allah waxa weeyaan isticmaalaya construction line-ka hadii aan waa maxay drawing area-deedii banaaneed ku soo noqdo aan waxaan taabanayaa waxa weeye xarafka la yiraahdo XL oo loo soo gaabiyay waxa weeye construction line-ka soo xagaratay ama X line marka hadii aan enter saa u dhaho wuxuu leeyahay specify the first point ama maxay point-ga koowaad specify garay sidoo kale tan ma waxa jeceshahay line-kaaga wuxuu ku noqdo horizontal mise waxa uu rabtaa inuu ku noqdo مثلا vertical ma waxa rabtaa inaad si angle aad u sawirto waxa doonaysaa in si bisect oo kale aad u isticmaasho waa maxay aad ku kala qaybiso waxa weeye مثلا shakli aad haysato oo kale waxa doonaysaa isagoo offset ah in aad waxa weeye aad sameyso marka مثلا hadii aan waxa weeye aan taabto aan point waxaad arkaysaa inuu line meel nihaayi ama line waxa weeye dhamaadkiisa aan garanayn inuu waa maxay sawirayo saas oo kale hadii waa maxay aan dhanka kale taan mouse-kayga u soo jeedo waxaad arkaysaa si vertical aynu isku bedelayo dabcan waxa hadda on waxa weeye amarkeena ortho hadii aan off iska dhaho amarka ortho waxaad arkaysaa line-kayga inuu angle kasta aad u baahan tahay uu qaadan karo si easily marka hadii aan doonayo waxa weeye vertical iyo horizontal bas inaan ka dhigto waxaan taabanaya F8 waa maxay amarkayga ortho ayaan on ka dhiganayaa soo waxa galatay maaha midkaan rabo ayaan sawiraya مثلا marka hadii aan doonayo waxa weeye inaan axis noocan kale aan bilaabo shaqadooda iyo waa maxay uu noqonayo waxaan bilaabayaa waa maxay inaan sawiro waxaan taabanaya XL okay taabanaya any place waa maxay random taas ayaan u taabanaya waxaan taabanaya line-kii marka ugu horeysay asaaska ahay vertical-ka iyo hal line waa maxay horizontal labada line ayaan u sameysanayaa marka waxaan doonayaa مثلا axis inaan sameysto مثلا line-ka ugu horeeya waa maxay line-ka labaad in isku xigsada ama distance-ga مثلا 20 45 يعني distance noocaas kale taa layman isu jiro oo kale يعني مثلا hadaan saa dhaho maxay inaan dhaho maxay line-kan kale isu jiraan مثلا 20 line-kan kale isu jiraan 45 line-kan isu jiraan 45 line-kan isu jiraan 45 soo garta ma يعني qaab noocaas oo kale taa marka waxaan dhahayaa مثلا amar waxa jira offset la yiraahdo amarka offset-ka waxaan ka soo dooran karaa waxa weeye qaybteena ribbon-ka waa amarada waxa weeyaan u isticmaali doono dot modification ka maxay inaan wax ku bedbedelaan marka hadeertaan maadaama waa maxay aan qasab inuu noqoto waxa weeye inaan la isticmaalno waxa weeye construction line-ka waan sharaxayna laakiin asagoo si detailisa waa maxay inta ka balaaran insha Allah gaarkiisa ayaan u tagaynaa aynu marka amarka offset-ka waxaan ka soo dooran karnaa waxa weeye qaybta ribbon-ka halkaas inuu yaalo waad arkaysaa offset ama waxaan taaban karaa xarafka O waxa weeye keyboard-kayga oo loo soo gaabiyo offset soo waxa kala timaa enter markii aan dhaho waxa ku leeyahay waxa weeye
specify offset distance waxaad specify karaysaa aad offset distancegaaga intuu noqonayo marka saddex option baa haysataa wuxuu leeyahay مثلا through iyo rise iyo layer midkee baad rabtaa inaad doorato marka ugu horeysa hadda wuxuu ii yahay uu waa maxay default igu fadhiya waa through isagan u deynaya inter ayaan leeyahay aan waxaan ku leeyahay marka link aad rabto inaad offset u samayso aad soo xagartay ama maxay isagoo kale typically aad samayso aad waa linka مثلا horizontal kan ka bilaabay waxaan leeyahay waa linkan حاجة موس كوسو جديد وحكولية مثلا هي لين كان يلين كليته هذا أسمين سواء محسوق كليته distance انتين اللي جاي دون سعينا ولا حيسو أي مركب حاليا مثلا لين كان يلين كحربين سوجي سدان وامحي لبعتن أوكي تي وامحي هذا ما يموضع ده أنا وامحي أنسود ويو سو حقرات ما زوم كحد أركز وامحي إنه لبعض لين ساس كليته يوصلونه مركب عندها هي مثلا لين كوحي وامحي ولي أمر كي بنكون بحجران كما بحين آن سو حقرات ما أيوة عندها هي لين كان لين كوحي وبنقولنا مثلا فرتنيشان soo xagartay ma inter line kala 45 igu dhig waxaan dhahay line kan linka ku sii xiga wuxuu noqonayaa 45 soo xagartay ma waxaan dhahay line kan linka kale ku sii xiga wuxuu noqonayaa 45 linka ugu dambeeyay ku soo xirayana waxa weeye مثلا 20 okay aad arkaysaa waa maxay qaybteeni verticalka inaynu waa maxay si fudud aynu soo ugu qaybsanayno qaybteeni horizontalka hadii aan rabno inaan qaybsano wali amarka ayaan ku jiraa wali waa maxay offset kan marban soo doortay wali kama bixin marka waan sii wadi karaa aan waxaan dhihi karaa مثلا hay linka ka hooseeya waxaad iga dhigtaa مثلا 20 sidoo kaleeto soo xagartay maaha hadii waa distance kala duwanaan karaan ay waa maxay laakiinse hadeertaan waxa weeye waxaan ka dhigaynaa waa maxay lemon fixed ah soo xagartay laakiin mashruuca kaleeto waa ka duwan yahay oo soo xagartay maaha qaab waa maxay access loo bedelo iyo waxa weeye iyo qaabka loo doorto iyo muhiimadoodana waxa weeye waxaan isku dayaynaa insha Allah in video gaar kaga hadalna aynu laakiinse hadda aan ku dheeraanayno si waa maxay timeka video uu soo ugu dheeraan marka waxaad arkaysaa waxa weeye in aan qaybtan waa maxay horizontalkana aan si waa maxay equal aan u qaybsanayno marka inta u baahan anigu waxa weeye waa inta gudaha ah soo xagartay maaha inta gudaha laakiin hadii aan maanta zoom dhaho waxaad arkaysaa labada line dhamaadkooda inaan gaari karin soo xagartay waa maxay waayo x line construction line ko waa line ma la nihaaye waa maxay meesha ku dhamaanaya aadan garan karin yani مثلا line hadii aan saan kale u sawiro soo xagartay maaha line hadii aan saan kale u sawiro waxaad arkaysaa line kan kale waa maxay ma la nihaaye ma meesha ka bilaabay meesha ku dhamaado waan garanaya laakiin line saan kale taa construction line am x line ah wad garan karo meesha ka bilaabay iyo meesha ku dhamaaday marka waxaan u baahanahay waxa weeye inta gudaha ah intaas gudaha ayaan u baahanahay marka waxaan taabanayaa waxa weeye amarkeen caadiga ah waxaan soo dooranayaa waxa weeye rectangle soo xagaratay ma si aan isaga tirtiro waxyaalaha dheeriga ah soo xagaratay marka rectangle ayaan soo dooranayaa waxaan rectangle dhex gashanayaa waxa weeye intaan u baahanahay marka midna waxaan leeyahay waxaan u baahanahay intaan u baahanahay intaas ayaan u baahanahay inta kale oo banaanka ah waxa uga ma baahanayaan soo xagaratay marka saan u tirtiro waxyaalaha ziyaadada waxa jira amar la yiraahdo extreme ما استعمالي كرتات لكن extreme ك يعني حالات نوعا كلتا يفضل ايدا وناكسن صح كرتما extreme markaan saa inter u dhaho aan صح كرتما waxa uu ku leeyahay waxa taabataa aad polyline-ka ama line-ka ama circle-ka ama arc ama ellipse-ga ama image-ka ama text-ga aad doonayso waa maxay edges-ka inaad tirtirto aad yani line-ka ama box-ka ama line-ka inta soo nooc midka uu yahay soo xagaratay ma hadii aad xadidatay aad rabto waa maxay wixii banaanka ka ah ama wixii gudaha ka ah inaad tirtirto aad waa maxay select kare marka aan maadaama aan rectangle doortay aan rectangle ka yaan click siinaya aan waxaan leeyahay marka inta gudaha ah aan anigu u baahanahay marka wuxuu ku leeyahay specify the set to trim on waxaad specify garaysaa waa maxay set ka rabto inaad trim ku sameeysid marka waxaan rabaa waxa gudaha ah baan anigu rabaa wixii banaanka aan ma rabaa marka hadii aan banaanka rabin waxaan click siinaya waxa weeye wixii box ka banaanka ka ah si waa maxay iga tirtirmo hadii aan gudaha aan waa maxay aan rabin waxaan taabanaya waa maxay gudaha box-ka si waa maxay wixii gudaha oo dhan iga tirtirmo markaan hadda banaankaan rabaa in iga tirtirmaan ay click ayaan waxaan siinayaa banaanka waa maxay waxaad arkaysaa waa maxay wixii ali dheeriga ahaa oo dhan waa maxay leemakii maalan hayga ahaa waa maxay aanan arkin meesha ku dhamaanay inuu iga tirtiray uu marka waxaan si audit iska qaadaya hadii aan u baahdo waa maxay box-kiina waa maxay rectangle-ka waxaan meesha u galiyay bas waxay waa maxay inaan trim ku sameystay bas laakiin midaan adeegsanayay muusan ahayn soo agartay خلاص marka waxaad arkaysaa waa maxay shakligii axis-ka oo kaleeto inaan waa maxay aan sameystay aan kaliya ka farqi baa wali jiro waa kan colorkiisu waa maxay ka duwan yahay waxaad arkaysaa dash line inuu yahay kan laakiis waa maxay line-ka dhan waa solid soo xagaratay ma dash maahan wali colorku waa cad yahay marka tacdiilaad noocaas oo kale taas ayaan u sameeyaa tacdiilaadkan oo kaleeto mustaqbalka insha Allah inuu sameyn doonaa aynu
soo waxaan garatay maaha laakiin saa dartaan direct inaad waa maxay shakligaas kor kule kaada isagoo shakliga highlight saaro qaybtan sale ribbonka waxaad arkaysaa waa maxay pie layer meesha ku qoran tahay colorka waa maxay calaamada colorka ku muujinaysa soo dooro colorka midna haddii aad doonayso guduud oo kale inay guduud ka dhigayso taas kale soo waxaad garatay maaha hoos waxaad arkaysaa line-ka type-kiisa ama dhinaciisa waxaad arkaysaa line-ka inaad thickness u sameyn karaan line-kayga kale inaad thickness u sameyn karaan yani مثلا haddii aan rabo waa maxay line-kayga inuu waa maxay thickness-kiisu ziyaado oo kaleeto waxaan ka dhigi karaa line-ka ziyaado thickness-kiisa ilaa iyo intaan doono wax garatay ma ilaa iyo waxaan gaari karaa waa maxay 2 millimeter wax garatay ma marka مثلا haddii aan waa maxay 40 millimeter oo kaleeto haddii aan ka dhigto 40 millimeter waxaad arkaysaa welito line-kayga waa tabtiisa weli waa maxay wax isbedel ma waa maxay active imaha marka haddii aan rabo waa maxay isbedelka inuu ii muuqdo qaybtan hoose waa maxay stripkan hoose ayaan imaanaya waxaad arkaysaa meeshaan ay ku qoranta waa maxay light weight-ka ama show and hide line weight-ka hadda off uu yahay hadda on haddii aan dhaho waxaad arkaysaa line-kayga thickness-kiisa inuu isbedelo marka aan waxba thickness-kaas uma baahna hadeertaan soo waxaan garatay ma caadi waxaad ku bedeshaa waa maxay sida devotiga barnaamijka ku yimaaday soo waxaan iska soo xirso ama shashada uu iga qarin marka hadeertaan waa maxay waxaad arkaysaa waxa weeye inuu sida caadiga ahayd waa maxay ku yahay marka haddii aan doonayo مثلا line-ka inaan dash ka dhigo aan waxaan soo furaya qaybtan by line-kan soo waxaa garatay ma line-kan ekadka ah soo waxaa garatay ma dash line-ka ah inaan waxa weeye aan saa usoo doorto waxaad arkaysaa laymankayga dhan inuu dhutaabtaan ay centered ay noqdeen ama waa maxay layman axis oo kaleeto ay noqdeen ay مثلا marka haddii aan doonayo waxa weeye circle-adan oo kaleeto waa maxay si aan waa maxay line kasta aan magaciisa aan ugu muujiyo aan soo waxaa garatay ma inaan sameeyo aan amarka circle soo barana aynu soo waxaa garatay ma circle ayaan soo dooranayaa aan soo waxaa garatay ma هلا waa maxay circle ayaan saa u sameynayaan okay خلاص taasaan kale tusoo gartay ma laakiin se centerka waxaad arkaysaa link inuu saas kale u soo galay uu hoos inuu soo aado marka waxaan sameyn karaa bas waa maxay inaan hadeertan move iska dhaho aan ya laakiin waa maxay amarada tan move iyo copy iyo waxyaalaha hadda aan isticmaalayo oo dhan waa maxay waa amaro aynu hodhoti aynu isla arki doonno aynu waa maxay aynu mid kasta aynu ku taaban doonaa laakiin hadeertan amarada aynu ku jirno waa maxay amarada waxa weeye amarada waxa weeye drawing command iska bas marka qaybta sare waa maxay circle-da ka soo qaybta hoose oo kale hadii aan u baahanahay inaan sawiro oo kaleeto amar kaleeto waxaa jira mirror la yiraahdo yani xikaaya tawiila شويه marka la ka darta ma doonay inaad waa maxay ku dawaqdo aad kaliya waxaan doonayaa inta ugu muhiimsan inaad focus kaada ila saarto laakiin insha Allah detailska dambe oo dhan insha Allah si waa maxay shakli noocan oo kaleeto ah waa maxay noogu soo baxo isla gaarinaa waxba dirtaan ku wareerin marka line-ka construction line-ka waxaan u isticmaali karaa waxa weeye in aan shakli noocan oo kaleeto ama axis-ka mashruucan ka bilaabayo in aan ku design garaysto ama aan ku sawirto aan